مقدشو سلام أهلها كرام نعم أحبها مقدشو سلام مقدشو سلام زاحت الركام عاشت انسجام زاحت الركام وعاشت انسجام شبابها بذل مقدشو فأشرق الأمل مقدشو شبابها بذل مقدشو فأشرق الأمل مقدشو مقدشو سلام أرضها سلام عيشها سلام أهلها سلام مقدشو سلام kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal iyo dilhaantiinba meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka hel hadiyad oo aadaayoo kale aad ka daawataan telefishinka dalsan xarunta dhexe magaalada muqdisho ayuu barnaamijka idinkaga iman doonaa waa barnaamij su'aalo kala duwan aynu ku weydiinno dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho bisha barakaysan ee ramadaan su'aalahaasi oo isugu jira kuwa cilmi iyo weliba diiniga iyo maadiga kuwaasi oo su'aalo kala duwan aynu dhallinyarada aynu ku weydiinno barnaamijkan waxaa kaalin weyn ka qaadanaya oo abaabulka iyo weliba abaalmarinta ku bixinaya shirkadda daabacadda ee Supersan Design barnaamijka inta uu soconayo su'aal diyaarintu waa ustaad Bangladesh anigoo Xasan Laki ayaa barnaamijka idin la socodsiinaya saaxiibkay Xusna ayaa kaamirada iga saacidaya waana mar kale iyo barnaamijka hel hadiyad ee telefishinka dalsan iyo Supersan waatahay daawadayaal barnaamijka dhinaca su'aalaha ayaan gudagalaynaa dhalinyarada aynu kula kulannay magaalada muqdisho ayaynu su'aal weydiin markaas hor dhigi doonaa saaxiib marka hore magacaaga magacaygu waa cali cabdisiyaad oo ku magac dheer cali akaara dhalinyarada ku nool magaalada muqdisho ayaa tahay si fiican dhalinyaradu qaar isboorti bay ciyaaraan qaar bajaaj ayay wadaan qaar kale waxa weeyaan magaalada baagamuunda ku yiin bal adiga ka waran ani waxaa reeray sports maasha Allah isboortiga taageertaa kooxda Real Madrid waaw ingiriiskana Manchester United waata diyaar waa tahay Soomaa su'aalahan ku weydiino inaad ka jawaab celiso si fiican waa hagaag nambaradu waxay ka bilaabanayaan nambarka koowaad ilaa iyo nambarka shanaad su'aasha ku xusan ayaa nambarka aad qabsatay inuu ku soo bandhigi doonaa haye nambarka aad tijaaminayso su'aasha koowaad ee barnaamijku waxay ku leedahay waa sida tan daawadayaal waa maxay shayga kaliya ee wax cuno haddana aan dhargin waa maxay shayga kaliya ee wax cuno haddana aan dhargin mar saddexaad waxaad sheegtaa shayga kaliya ee wax cuno haddana aan dhargin mobilka waa dhargaa bitir haddii la geliyo bitil fuulu kuusoo sheegaa waa buuxaayuu ku leeyahay laakiin waxaan isaa wax cuno haddana ma dhargo wallaahi ma garanaya waa tahay aad baad umahadsan tahay saaxiib kale ayaan fursad u siinaynaa iyo iskudayga waa tahay daawadayaal saaxiib kale ayaa ila taagan oo dabcan sheegay inuu ka faa'iidaysanayo su'aasha aan miiska u saarnay marka hore saaxiib magacaaga magacay cabdi maxamed xaaji cabdallah ya salaam dhalinyarada ku nool magaalada muqdisho assalaamu calaykum salaanta islaamka ayaan ugu salaamayaa walaalihii muslimiinta meel walba joogtiin assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu su'aasha hadda ay weydiismi macnaha ka faa'iidaysnaa mise su'aal kale waa macna cusub su'aasha ka faa'iidaysiga u baahan ayaa taalo oo ah waxaad sheegtaa wax kaliya wax cuno haddana aanan dhargin wax kaliya oo waxaan cuno aanan dhargin waa bisada waa maya bisada malaaya cunay waa dhargey hilib ay cunay bisada waa dhargey haye ayada kulay ana ayada saasaan u malaynaa su'aal kale intaas aga baxay waa tahay number ayaad qabsan doontaa maadaama su'aashaas ay ka faa'iidaysayd nambarka koowaad ilaa iyo nambarka shanaad weeyaan lambarka koowaad su'aal ayaa ku xusneed way baxday haye nambarka aad ku tijaabinayso lambar kale oo baaqay ah miya 2 ilaa 5 nambarka shanaad ee barnaamijka su'aasha ku xusan waxay ku leedahay sida tan waxaan ahay wax aad maqli karin wax aad maqli kartid laakiin aadan arki karin
haddii markaasi aad aragtaana lagama yaabo in aad dib dambe markaasi ii maqashid aye ma kugu celiyaa su'aashu waxay ku leedahay waxaan ahay wax aad maqli kartid laakiin aadan arki karin haddii aad ii aragtaana lagama yaabo in aad dib dambe aad ii maqasho kumaan ahay والله شو ايش المكان اسمه ده جينيجو جينيجو jiniga miya اه jiniga ma la arkaa ما لا أعرف. ma la maqlaa ما- waa taa waa mahadsanta laakiin su-aashaasi saaxiib waa ku dhinac martay soo dhawaayaan ku leeyahay waa tahay daawadayaal waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka ilaadiyad telefishinka dalsan ayaad nagala socotaan shirkadda Supersan Design oo ah shirkad daabacada noocyada kala duwan oo adeeg daabacad ay ugu talagaleen bulshada in ay ugu adeegaan qiimo jaban iyo weliba degdegsiimo ama dhaqsiyo haddaba su'aalaha ayaynu ku guda jirnaa telefishinka dalsan oo nagala socotaan saaxiib kale ayaa ila taagan oo aan jecelahay inaan soo dhawo saaxiib magacaaga magacayga waa rabiic cabdiqaadir maxamed rabbi dhalinyarada muqdisho ayaa ka mid tahay sax waa jooga waana ka mid ah laba su'aal ayaa miiskii noo saaran bal isku daygaaga isku daygayga inaan ka faa'iidaysto ayay su'aasha koowaad waxay leedahay waxaa sheegtaa shayga keliya ee wax cuno balse aan dhargin su-aasha shay keliya wax cuno aan dhergin caloosha caloosha way dheragtaa laba saxan oo zab haddaa ku tuuratid waxaa waa caloosha faniinta waay haddii waxaa kiili hilib aa cuntid faniinta waa kiili xal waa buuxdaa caloosha su'aashaasi waa qubaysataa midda kale ma isku dayi kartaa ee faa'iidada ah maya mid cusub waa hagaag balse waxaan jeclaan lahayn labada su'aal ee faa'iidada marka hore inaan u helno jawaab maadaama mid ay ahayd haddana su'aal kale ay noqotay marka waan ku soo dhaweynaynaa su'aalaha kale ka faa'iidaysiga ayaan siinaynaa dhalinyarada soo dhow rabiic waa tahay daawadayaal barnaamijkii ayaan ku guda jirnaa arday da'yar ayaa wuxuu leeyahay su'aalihii labada ahaa ee laga jawaabi waayey mid ka mid ah ayaan jecelahay inaan ka jawaabo waa arday aad u da'yar dadaal badan saaxiib magacaaga عبد أحمد عمر cabdicasiis kaamirada oo fiirinaya su-aasha isku dayay ma su-aashii koowaad mise su-aashii shanaad كوات su-aasha koowaad su-aasha koowaad waxay leedahay waa maxay shayga keliya ee wax cuna balse aan dhargin كان يعدى kaneeca haddii ay adi dhigay kaa dhuuqda kadib waaba qubaysay bay waay haddii la rabo waa iska dhimahe marka waa mahadsan tahay waa dadaashi soo dhowow miiska inoo saaran weli cid hadiyad ku hesha ma jirto laakiin saaxiib kale ayaa ila taagan soo dhowow magacaaga magacay ismaan axmed aadan cismaan waxaa ka mid tahay ragga magaalada muqdisho ku nool mahadsan tahay aad iyo aad saaxiib laba su'aal ayaa miiska saaran ma mid ayaad isku dayaysaa oo dee waxaad is leedahay aan ku dadaalo waa dadaalayaa soo da su'aal waxay leedahay waxaad sheegtaa wax cuno balse aan dhargin aloo ba'ayoy anaa igaarti warkaas leemiya kas waa dabka leeb waaye wow ya salaam waa tahay saaxiib hambalyaan ku leenahay waxaan leenahay hadiyaddaadii ayaad leedahay ee kugu talagashay shirkadda Supersan Design wuxuu ku guulaystay koofiyad ay ugu talagashay shirkadda Supersan saaxiib soo dhawaayaan ku leeyahay su'aashaas wax badan oo soo wareegtay Soomaa su-aashaas waxaan ka dheelahay ma jirta dadkan saan oo kale inay ugu jawaabaan lacagata waa ku jirtaa meeshaan laga faa'iidaysto waa tahay hambalyo hadiyaddii Supersan koofiyadda ayaad ku guulaysatay soo dhawaayaan ku leeyahay saaxiib haye waa haysaa Soomaa وهاي ما أنا ولي بسفحنا وهاي إلى رسولك يكون والله بالله تلا مجدها وكاي حورت هذا كتا نحي نكتا تنو بعد alaabtaasaa gashay أنا تانا كشتف ورا مقالي مسكال أنا كرسيه هاي كورها يا سلام قرح على قرح هاي قرح ويا قرح أنا وتقنت باي باي وبحي nabadey
daawadayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijka hel hadiye telefishinka dalsan ayaad nagala socotaan shirkadda Subarsan ayaa hadiyado kala duwan ku bixinaysa Ramadaanul Kariim saaxiibada kala duwan ee dhalinyarada oo aan jecelnahay su'aalaha sida kiriska aynu u weydiinayna in markaas ay ka jawaab celiyaan iyaguna hadiyado kala duwan ay ku heli doonaan saaxiib kale ayaa ila taagan oo kamid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho ugu horreynba magaciisa ayuu noo sheegi doonaa saaxiib soo dhow dhawaabo magacaygu waa Cabdiraxmaan Deeq Muumin Cabdiraxmaan su'aal ka faa'iideysa ayaa talmisan number cusub haye numberka aad qabsanayso lambar 4 numberka afraad ee barnaamijka su'aasha ku xusan waxay ku leedahay sida tan waa su'aal aad u cajiib ah u diyaar garow dhagta u raarici akhrintu waa aniga waxay leedahay wax walba oo dhasha waa ay dhintaan wax walba oo dhasha waa ay dhintaan aniguse horay uma dhalan haddana waa dhintay sidee ku dhacday kumaasa ahay ayee ma kugu celiya mise waad haysaa su'aashu waxay ku leedahay wax walba oo dhasha waa ay dhintaan aniguse horay uma dhalan haddana waan dhintay sidee ku dhacday kumaasa ahay aniga haye anaa kuu dhiibaya mikrofoonka waxaa tahay adiga horta waa nebi aadan calayhi salaatu wasalaam waxaana laga abuuray caro marka waxay leedahay su'aashaas nebi aadan ugu jawaabay bal aan kuu fiiriyo jawaabta uu saaxiibkaasi dhiibay hambali ayaan ku leeyahay saaxiib hadiyadii aad ku guulaysatay ee Subarsan ayaa lagu siinayaa su'aashaas jawaabteedu waa nebi aadam calayhi salaam waagaag shirkadda Subarsan waxay kugu talagashay inay ku siiso afxirka face mask iyo sidoo kale koob Subarsan haddaad rabto ku shaaxinaysaa waa ku qaxweynaysaa waa ku mishaaraynaysaa soo dhawaan ku leeyahay saaxiib waa dhawaay waa mahadsantahay Cabdiraxmaan waxaan ku leeyahay saaxiib soo dhawow hambaliyo waa mahadsantiin mahadsan tahay mar kale Ramadaanul Kariim su'aalihi kala duwanaa iyo dhalinyarada ka jawaab celinaysa ayaan ku guda jirnaa shirkadda Subarsan oo ah shirkaddan daabacada quruxda badan ayaa barnaamijka hel hadiyad abaalmarino kala duwan markaasi ugu talagashay dhalinyarada inay su'aalaha weydiino telefishinka dalsan oo aad nagala socotaan mid ka mid ah gabdhaha da'yarta ee waxbarta ayaan la kulmay walaal magacaaga fartuun maxamed cabdi fartuun ku soo dhow barnaamijka hel hadiyad waa dhawaay su'aal ka faa'iideysa ayaa talmis su'aal cusub waagaag su'aal cusub haddaan ku weydiinayo waxaa inoo taala su'aasha labaad su'aasha saddexaad labada su'aalood ayaa miiskii inoo saaran haye lambar 2 su'aasha lambarka labaad ku xusan waa su'aal cajiib waxay ku leedahay sida tan waa iliqdaa anna waan ku liqaa haddaba kumaan ahay aniga waa iliqdaa waana ku liqaa kumaan ahay aniga waxaa tahay biyaha okay waxaa tahay biyaha alla yacizak fartuun yar aad bay u mahadsan tahay wax aad liqdo kuna liqo waa biyaha hambali ayaan ku leeyahay hadiyadda ay kugu talagashay Subarsan ayaan ku siinaynaa funaanad ay kugu talagashay ayaad ku guulaysatay fartuun soo dhawow ayaan ku leeyahay hambaliyo waa dhawaay mahadsanid waa tahay Ramadaanul Kariim barnaamijka hel hadiyada Subarsan design ay taabagelinayso ustaad Bangladesh ay su'aalaha diyaariyay adiga wax salaka ayaa barnaamijkeeda la socodsiinaya markan gabar kale oo kamid ah ardayda wax ka barata ayaa nala kulantay oo waliba jecel inay wax ka jawaabto isku daydo marka hore magacaaga Caasha Ukar Maxamed Caasha waxa kamid tahay ardayda wax ka barata Muqdisho sax waa haye su'aal ka faa'iideyso u baahan ayaa talmis su'aal cusub waagaag nambarka inoo haray su'aasha waxa weeyaan nambarka saddexaad nambarkaas yar ayaa u tahay inaad isku daydo ka jawaab celinta sax waa waagaag su'aashu waxay ku leedahay sida tan anigu waa laysidaa anna waxbaan sidaa qayb ka mid ah waa qaleel qaybta kalena waa qoyaan haddaba kumaan ahay anigu waan kugu celinayaa mise jawaabta haysaaba kugu celiyaa su'aashu waxay ku leedahay anigu waa laysidaa anna waxbaan sidaa qayb iga mid ah waa qaleel qayb iga mid ahna ama qaybta kalena waa qoyaan kumaan anigu ahay bal fikir isku day jawaabta 3 mar ayaan fursad kuu siinayaa in aad ka jawaab celiso haye waxaa tahay doon ama markab waaw su'aasha Caaisha aan weydiinay oo ahayd anigu waa laysidaa anna waan sidaa qayb ka mid ah ama qayb iga mid ah waa qoyaan qaybta kalena waa qaleel kumaan ahay jawaabta oo saxda ah waa doonta waayo doonta waxbay sidaa
iyadana biyaha ayaa sido ama rar bay sidaa ama dad ayay sidaa qaybta hoose biyaha ayay ka tahay waa qoyaan qaybta sarena waa qaleel oo alaab iyo dad ayaa saaran waad mahadsantahay hadiyadda subarsan ee kugu talagashay ayaynu ku siin doonaa waxaa ku guulaysata koob iyo weliba sanxirka face maska soo dhawow Caasha mahadsanidin waad mahadsantahay waa hagaag hambalya ayaynu leenahay daawadayaal guud ahaan inta ayaynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka hel hadiyada oo aad kala socoteen telefishinka dalsan anigoo xasan laka ayaan idinla socodsiinaya xusni ayaa barnaamijka dabcan dhinaca kamarada iga saacidayey barnaamijka madlacan intaynu kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo مقدشو سلام أهلها كرام نعم أحبها مقدشو سلام مقدشو سلام زاحت الركام عاشت انسجام زاحت الركام عاشت انسجام شبابها بذل مقدشو فأشرق الأمل مقدشو شبابها بذل مقدشو فأشرق الأمل مقدشو مقدشو سلام أرضها سلام عيشها سلام أهلها سلام مقدشو سلام